Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is a great honor for me to address this distinguished sharaf weyn ayay ii tahay inaan khudbad ka jeediyo kulankan qiimaha leh ee shirweynaha labaad ee wasiirada gaadiidka ee ururka iskaashiga islaamka. marka hore waxaan u mahadcelinayaa dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda Turkiga sida sharafta leh ee ay u martigeliyeen kulankan muhiimka ah iyo soo dhaweynta diiran ee ay u sameeyeen wafdigayga iyo xubnaha ila socda. habeynta heerka sare ah ee Turkiga ee shirkan waxay muujinaysaa hoggaankeeda joogtada ah iyo sida ay uga go'an tahay xoojinta iskaashiga dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka. waxaan ku kulannay mowduuc waqtigiisa ku habboon oo macno weyn leh: xoojinta isku xirka gaadiidka si loo adkeeyo walaaltinimada dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka. mowduucani waxa uu ka turjumayaa xaqiiqo muhiim ah oo asaasi ah: isku xirnaanta ma aha oo kaliya kaabayaal, waa midnimo, barwaaqo wadaag ah iyo awooddeena wadajirka ah ee aan uga falcelino dunidan sii kala qaybsamaysa. maanta nidaamyada gaadiidka caalamku waxay wajahayaan cadaadis aan horey loo arag. carqaladaha silsiladaha sahayda, xiisadaha juqraafiyadeed, saameynta isbeddelka cimilada iyo caqabadaha amni ee taagan ayaa weli tijaabinaya adkaysiga marinadeena. xaaladan iskaashi qoto dheer oo u dhexeeya dalalka ururka iskaashiga ee islaamka ma aha doorasho, waa mid lama huraan ah. Soomaaliya waxay aragti gaar ah ku soo kordhinaysaa doodan. waxaan nahay dalbadeed leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, dhulweynaha markii loo eego, kuna yaal meel istiraatiiji ah oo ku beegan qaar ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan dunidu ay maraan, kuwaas oo isku xira Afrika, Bariga Dhexe ilaa Asia. meesha juqraafiyadeed ee Soomaaliya waxay leedahay fursad weyn oo aan kaliya horumar u ahayn dalka, balse sidoo kale xoojin karta isku xirnaanta heer gobol ilaa heer qaaradeedba. mudanayaal iyo marwooyin, safarka soo kabashada Soomaaliya waa mid gaar ah. 10 sano oo colaad iyo nuglaasho ah kadib, waxaan si tartiib tartiib ah u dhisaynaa hay'adaheena, kaabayaasheena iyo dhaqaalaheena. horumarkan waxaa si weyn u suurageliyey midnimada iyo taageerada saaxiibadeena, gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka. waxaan si daacad ah u qiraynaa doorka qiimaha leh ee ay dalalka ururka iskaashiga islaamku ka qaadanayaan xasilinta, dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya. qorshahan dib u soo kabashada iyo isbeddelka qaran, horumarinta gaadiidku waa mudnaanta koowaad. sanadihii u dambeeyey, Soomaaliya waxay samaysay horumar muuqda oo dhinacyo badan leh. waxaan dib u dayactiraynaa oo aan ballaarinaynaa waddooyin muhiim ah oo isku xira magaalooyinka waaweyn iyo goobaha wax soo saarka. waxaan horumarinaynaa nidaamyada gaadiidka dhulka ee magaalooyinka iyo kuwa isku xira gobollada. isla markaana waxaan casriyeynaynaa kaabayaasha duulista oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha iyo adeegyada hagidda hawada si loo kordhiyo badbaadada iyo isku xirnaanta ilaa heer gobol. dhanka kale, waxaan maalgelin ku samaynaynaa dekedo casri ah, waxaan xoojinaynaa maamul wanaagga badda, waxaan kor u qaadaynaa amniga iyo badbaadada badaha. isla markaana waxaan horumarinaynaa awoodda aadanaha ee dhinaca waaxda gaadiidka. dadaaladani waxay ujeeddadoodu tahay in Soomaaliya ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo iyo xarun saadka ah oo soo baxaysa oo ka mid noqoto shabakadaha gaadiidka ee badda ee heer gobol ilaa heer caalami. gaadiidka badda iyo kan isku dhafka ah ee loo yaqaan multimodal transport waxay fursad waaweyn ay u yihiin iskaashi qoto dheer oo u dhexeeya dalalka ururka iskaashiga islaamka. iyadoo la isku dabaridayo maalgelinta, lana mideynayo xeerarka, la kobcinayo awoodda, lana wadaagayo khibradaha, waxaan furi karnaa marino ganacsi oo cusub. waxaan wanaajin karnaa hufnaanta saadka,
isla markaana waxaan xoojin karnaa adkaysiga nidaamyadeena wadaagga ah. Isku xirnaantu waa in ay noqotaa mid waarta oo loo wada dhan yahay. Soomaaliya waxay horumarinaysaa istiraatiijiyadda qaran ee dhaqaalaha buluugga ah, iyadoo sidoo kale diiradda saaraysa kalluumaysiga, ilaalinta deegaanka badda iyo horumarinta badeed ee u adkaysan kara isbeddelka cimilada. Waxaan si adag u aaminsannahay in kobaca dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka ay tahay in ay isla socdaan. Mudanayaal iyo marwooyin, waaxda gaadiidka ee Soomaaliya, gaadiidka badda, waxay leedahay fursado ballaaran oo iskaashi iyo maalgelin ah. Sidaasi darteed, waxaan si diiran ugu casuumaynaa dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka, hay-adaha horumarinta iyo bahda gaarka loo leeyahay in ay ka qayb qaataan isbeddelka gaadiidka ee Soomaaliya. Waddooyinka, duulista, dekedaha, saadka iyo kaabayaasha kale ee taageerada u baahan. Waxaan diyaar u nahay in aan fududeyno iskaashi danwadaag ah oo kor u qaada barwaaqo wadaag ah iyo isdhexgal goboleed. Shirkani wuxuu bixinayaa madal muhiim ah oo aragti looga gudbo ficil. Soomaaliya waxay si buuxda u taageertaa dadaallada xoojinaya iskaashiga hay-adaha, wadaagista aqoonta iyo wada shaqaynta wax ku oolka ah ee dalalka ururka iskaashiga Islaamka. Markaan wada shaqayno, waxaan u rogi karnaa isu soo dhowaanshadeena juqraafiyadeed iyo qiyamkeena wadaagga ah faa'iidooyin muuqda oo u soo hoyda shacabkeena. Soomaaliya ahaan, waxaan taageeraynaa hadalka wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha ee Turkiga ee ku saabsan aas-aasidda xarun gaadiid dhuleed, iyadoo lagu salaynayo go'aankii lagu gaaray shirkii koowaad ee wasiirada gaadiidka ee ururka iskaashiga Islaamka sanadkii 1987. Xaruntani waxay fududeyn doontaa isku xirnaan dheeraad ah oo u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka. Aan ka faa'iidaysano fursaddan si aan u adkayno ballanqaadkeena ku aadan isku xirnaan xooggan, walaaltinimo qoto dheer iyo mustaqbal gaadiid oo midaysan oo adkaysi leh oo u adeegaya bulshada ururka iskaashiga Islaamka. Waad ku mahadsantihiin dhagaysigiina qiimaha leh. OIC community, I thank you for your kind attention.